إلهي سبحانه وتعالى كل شقله لكن صادال هذا إماته ضد وحجر وح صادالية سو ليلى عبد اللطيف وحكمتها هاي دتك وح صادالية أما وح شيكة أنت إسندعين إنك صوت دجال كان أي شيكتي أنت أوسندعين لكن دتك وحكوا برادوجا يا مركي شيكة دعدي الله ليلى أساس هذا أي أنت بدن دهان يعني محلها تيفية ده maadaama dagaalkan hore ay u sheegtay 2024 ilaa 2025 inuu dhici doono soo hadda maadaama xiisad ay taagan tahay dadka ummadda waxay u baahan yihiin waxyaalo badan su'aalo badan ay isweydiinayaan cid ugu jawaabto haddii noqoto dagaalka siduu ku dhamaan doono mise dagaalka saddexaad oo adduunku isku bedeli doona Iran halkay ku dambeyn doonta su'aalo badan oo jawaabtooda maxal lahaayay ay dadku u baahnaan lahaayeen ay saadaasha Leila Abdulatif ay u noqonaysaa yani jawaab soo maxal lahaay first one waxa ku hormarayna dagaalka adduunku isku bedeli doona hadda ayay ka hadashay yani wax cusub waay waxay hore u sheegtay maahan waxay dhahday isku bedeli doono maxal lahaay dagaalka saddexaad ee adduunka xiisadiisa way degi doontaa jawigeena sidii hore isi ka fiican ayuu ku soo laaban doonaa ayay leedahay number 2 number 2 hubka Iran dadkeeda loo socdo mise hubkeeda soo maxal lahaay Iran waxa loo socdo dhan waa hubkeeda in gacanta lagu dhigo ama la baabi'iyo si ay maxal lahaay u noqoto wadan la adoonsan karo yani maxal lahaay maadaama Iran ay haysato hubka yani maxal lahaay in aslaxa an-nabawiyya yani hubka adduunka ugu weyn ay Iran haysato oo walina yani aysan isticmaalin ulajeedada dagaalka loogu soo qaaday waxay tahayba hubkaas Iran in laga baabi'iyo ayadana laga dhigo dawlad yani maxal lahaay oo la adeegsan karo oo yani ضعيف so waxay leedahay hubkaas lagama yaabo Iran wala America in ay u dhawaato ama hubkaas yani maxal lahaay la baabi'iyo Iran hubkeedu u badbaadaya dawladda siday hadda tahayna ahaanaysa waligeeda ayay leedahay okay mid xigta waxay tahay America maadaama hadda u jeedno in America ay dagaalku ku jirto laakiin waxay leedahay America waxay isku bedelaysaa in ay noqoto dhaxdhaxaadiye ee dhaxdhaxaadiso Iran iyo maxalla Israa'iil ayna maxalla heshiis iyo go'aamo iyo meeshas lagu kala qaato oo dagaalka demo okay mida shanaada dhihi karatan oo ugu xasaasiga ah maadaama Iran ay weerartay maxalla safaaradihii qaliijka ku yaalay oo America oo xitaa qaliij aysan u aabiyeelin oo waxaan ku dhahay waxa ay sameyn kartaa Iran had ilaa haddana ay wado maxay marka xaaladooda isku bedeli doontaa yani maxal lahaay ma Iran iyo qaliijka isdagaali doona mise ayagana maxal lahaay ayadana waxay leedahay waxay noqonayaan Iran iyo maxal lahaay iyo wadamada Carabta oo dhan yani hal saf yani dad isla jira Iran waxay rabtay intaas oo sano intaas ahaayeen way yani laakiin hadda maadaama awood ay adeegsatay awoodeeda ayay waxay ku bedelaysaa fikirkooda iyo wax kasto in ay noqdaan yani dad isku duuban oo yani hal meel ka soo jeeda waxay kaloo sheegtay in wadamada Carabta oo dhibaatada ka jirto Palestine inay nabad noqon doonto Yemen sidoo kaleeto wadamo badan oo Carab ay sheegtay in xaaladooda afdal bikatiir ay ku soo noqon doonto insha Allah wadankeena Soomaaliya Ilaahay noogu daro wadamadaas oo xaaladooda isbedeli doonta fiidiyogan share gareeya marba hada inta soo gaarteen